السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصومالي أكشن فضلا هداد ku cusub tahay subscribe ka noo saar maanta waxaan ka falanqeynaynaa ciyaaraha xidiga caanka ah ee lama joojiya Cristiano Ronaldo oo shaaciyay inuu kaga tagayo kooxda cajusta ee Juventus waqtigu ka tagi lahaana la ogaaday Ronaldo ayaa sanadkan hadii ay dhamaadaan inuu ka taga uu jecel yahay Champions League haduu ku guuleysaninba Ronaldo ayaa in badan ku qaatay Juventus goolal badan u dhaliyay 11 kulan oo isku xigto xiriir ayuu gool dhalinay Cristiano Ronaldo xidiga lama joojiyaha xidiga caanka ah ee Sergio Ramos oo la ogaaday hal sano heshiis loo soo bandhigay asagana uu diiday waxa laga yaabaa inuu kooxda Juventus u tago oo ku biiro Ronaldo la biiro xidiga De Bruyne oo sheegay Sancho oo inuu alamida uu la qaatay uu yahay ciyaaryahan aad iyo aad khatar u badan uu yahay Manchester City ay ka shalaynayso inuu ka tago maadaama uu academy Manchester City ka soo baxay Ole Gunnar Solskjaer oo doonayo hadana inuu dib ula soo saxeexdo xidiga khatarta badan ee Norwegian-ka Haaland maadaama ay Borussia Dortmund ka kor qaaday xidiga Griezmann ayaa soo dhaxgalay doodii u dhaxaysay Benzema iyo Oliver Giroud oo dagaalan ku jiray Benzema iyo Giroud oo dagaalan xidiga ka soo dhaxgalay xidiga Mtuidi oo caabuqi laga baaray hadana shaki la geliyay xaaladiisa caafimaad oo dib loo ogaan doono caafimaadka xaaladiisa caafimaad say ku sugnaan doonto maadaama caabuqi oo hadana dib ugu soo noqday xidiga Lautaro Martinez oo doonaysa Barcelona ayaa Inter Milan waxay ku rabtaa 120 milyan oo pound haday keento Barcelona waan siinayna ay dhaheen laakiin inta hadii keeni weydo wax ay leedahay malahan xidiga Coutinho oo kooxda Chelsea ay doonayso inay ku soo xoojiso weeraryahankeeda safkeeda ay ku soo xoojiso maadaama ay doonayaan in badan ay raadinayeen kooxda Chelsea ayaa waxay doonayaan boorteeriga khatarta badan ee u ciyaara Bayern Munich Milanoa ayay doonayaan inay shafkooda ku xoojiyaan maadaama boorteerigoodu uu aad iyo aad u liito Arsenal iyo Chelsea ayaa isku hayo saxiixa Mtuidi World Cup winner-ga maadaama uu ka tagay Barcelona ay sheegtay inay dirayso Barcelona xidiga William ayaa heshiiskiisa wuxuu dhacayaa bisha June waxaana laga yaabaa inuu aado kooxda cajusta ama kooxda Spurs Tottenham maadaama uu heshiiskiisa uu dhacayo xidiga Oliver Giroud oo la shaaciyay inuu ka tagi doono kooxda Chelsea kuna biiri doono kooxda Lazio oo Talyaaniga ka dhisan maadaama ay doonayaan kooxda Lazio ay ku soo xoojinayaan safkeeda maadaama ay rabaan inay ku xoojiyaan safkeeda Chelsea oo doonaysa weeraryahanka Moussa Dembele oo u ciyaara kooxda Lyon maadaama ay in badan doontay ninkana waxa lagu xujiyay lacag 70 milyan ah inay keenaan halkaas iyo nabadgeliyo ciyaaraha sidaas ayaan ku soo gabagabeynay fadlan hadaad ku cusubtay channel-kaanada subscribe noo saar walaalkay macaan aad baad u mahadsantiin